casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska online instructor training kooraskaas oo lagu baran doono qaabka online-ka wax loogu dhigo amba qaabka online-ka aad casharada ugu gudbin lahayd casharada iyo contentiska qaabka u diyaarin lahayd imtixaanada online-ka soo loo qaado sida loo duubo muuqaalada iyo fiidiyowyada iyadoo la isticmaalayo shaashada computerkaaga loona isticmaalayo application-ka loo yaqaano Camtasia isku soo wada duuduubo kooraskani bilow ilaa dhamaad waxa uu xooga saari doonaa inuu macalinka dhinac kasta ka tababaro oo ku saabsan inuu tacliinta uu ku dhigo qaab online ah amba uu ardayda ugu gudbiyo qaab online ah haddaba cidii u diyaara inay iska diiwaan geliso kooraskan waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين با إيا كلانتها بون إيا اسكسو نقض مركلة صاحبيا عشر كينا المانتو waxay ku baran doonaa qaabkee ayaa loo qaadaa manual online exams qaabkee ayaad qaab manual uga qaadi kartaa ardaydii adigoo maadaama live exams ka aanay suuragal ku ahayn amba aad door bidaysa adiga laftigaagu manual exam ka inaad qaadayso manual exam ka laba dariiq ayaa loo qaadaa ima inaad website amba mobile application adu aad leedahay aad ka qaado sida aqoon kaafi oo kale aqoon kaafi ardaydeedu manual exams kayga ardaydu waxay ku galaan mobile kooga gacanta amba website ka amba application kayga isticmaalaya amba website kayga isticmaalaya waa system develop garaysan oo idin tusi doono laakiin aan ku horeeyo qaabka loo yaqaan formka qaabka formku waa qaab bilaasha waxaana isticmaal doontaa Google kaaga amba Google Drive kaaga ay isticmaal doontaa inay ardaydo dhan detailkaaga kugu soo diraan Google Drive ka qaabka loo soo furto idin tilmaami maayo qof kasto Gmail iska leh wuu leeyahay Google Drive waayahay emailkaygi markuu kan yahay sid Google Drive kaaga soo furanaysa laba ay kan ba halkan kala ah mid kan waxa weeyaan ay emailadii kugu jiray oo dhan buu ku tusaya midina waa ay kan ka yar labaad oo Google Apps baa loo yaqaanaa isaga marka doorato halka ka dhex doora ay ku qorantay Drive toos buu ku dhex geyn doonaa Google Drive kaagi intaasoo kaliya taa Google Drive ka lagu soo furtaa way inta aan halka kaga soo gudbo marka ugu horeysa waxa sameysanayaa new folder cusub baan sameysanayaa halkan folder baan idhi new folder baan idhi khasab ma haynaad sameysataa laakiin waxay kugu muhiim tahay maadaama waxaad bixinaysaa ay yihiin dhowr kooras waxa la budda aanba muhiima inaad sameyso folder aad ku wada ridayso wixii oo dhan aad ku wada ridayso macnaheedu waxa weeyaan macnaheedu waxaan uga jeedaa in folder kan uu ka koobnaan doono amba folder kaagan aad ku ridan doonto hal kooras oo gaar folder ka labaadna kooras kale oo gaar eeg macnaha kooras walba folder gaar aad ku ridanaysaa imika kan waxaan leeyahay tusaale kale kooras 1 oo kale ayaan leeyahay kooraskii koowaad baan halkan ku ritay haddaba mid la ogsoonow folder shayga loo yaqaanaa waa shaygeenu hore u soo naqaanay muxuu ahaa shaygeenu hore u soo naqaanay folderada mobilada soo madarki jirin computerka soo folder laguma sameeysan jirin haddana soo folder kala duwan laguma si dhex sameyn jirin saasoo kale un weeyaan obi banadi oo folderkii ayaan anu sameystay imika halkan buu igu soo biiray imika folderkayga waa folderka loo yaqaano courses marka hadda Google Drive ka intani quick access baa la yiraahdaa marka hadda doonto iska qarin kartaa hadda doonto kolba sidii doonto u sameyn kartaa waxa yara quick access ka sare waa iska saari karaa laakiin inuu ku yaalo iyo kale waxba kuma soo kordhinayo laakiin wixii folder iska ka bilaabma iyo fileska umbu Google Drive ka ka bilaabmaya iyo wixii ka sii hooseeya folder ka samaysanay waa kan calaay kulli xal ee courses loo yaqaan waa folder maran hay folder keenan hadaba waxa ka dhex sameynaya imisa chapter ayuu ka koobnaanaya course-kan waa qaabka ugu wanaagsan ee aanu sameeyo marka sameynayo imtixaanada aqoon kaafi amba course-deeda marka sameynayo imtixaanada waa qaababka ugu wanaagsan inuu kala maareeyo marka waxa weeyaan halkan new baan leeyahay folder baan oranaya waxa leeyahay section 1 ee hadda waa chapter 1 macnaha chapter 1 imtixaankiisa baan halkan gelinaya way create baan leeyahay folder kale ka sii dhex sameeysama folderkii kale sii dhex gelaya folder kan kale waxaan ka dhex sameynaya wax loo yaqaano Google Form ku muxuu waa tape-ka loo qaado imtixaanada online-ka ah ee qofkii uu soo buuxin karayo formkiisii haye haddaba intaan halkan kaga gudbo aanu bilowno hadaba Google Form-kiina sameeyno
new baan doortay more baan doortay google forms baan ka doortay way google forms isaga ay soo baxaya haddaba google formska intaanan horta u sii guda gelin dhowr table laftigiisu u kala baxaa mar mid dhisnaa ayaad wax ka bedbedelaysaa kaliyaata marna mid aad leedahay baad adu create garaysanaysaa new baan idhi waxaan idhi tusaale kale google forms baan idhi icon ka yar haddii aan furo oo dhaa blank form iyo haddii dhaa from tablet macnaha kan blank form la yidhaahdaa waa mid zero scratch aad ka bilaabayso kan kalena waa mid dhisnaa ood wax ka bedelayso labadaba aynu aragna say yihiin blank form baan bilownay kan labaadna mar labaad ii soo dooro from tablet na ii soo dooro labadiiba waan soo furtay mid tablet dhisan baa wax laga bedelaya midna waa from scratch kan waa from scratch waa blankii ay ku qorneed kanna waa google forms noocyadii dhisnaa oo dhan ayuu halkan ku soo taxaya mid kamid aad kadibna ka dooranaysaa waayi noocyadii dhisnaa oo dhan buu halkan noogu sheegay iminka eeg haddii aan hoos u soo dego shay kastaaba wixii uu ka hadlayay buu mid kastoo dhisanba iminka tusaale oo kale assignment baad qaadisay kan assignment-kiiyo diyaarsan baa isticmaalaysaa right click haddaan idhaa haddaan taabto on doorto assignment-kii toos buu iga soo furaya course evaluation worksheet saasay magacyadoodii ugu qorqorayihiin shaygu waa shay dhisan keliya ta maxaad samaynaysaa dib unbaad u edit garaynaysaa wax ka bedel unbaad samaynaysaa sawirka ka bedel qoraalka ka bedel drag and drop saa yar unbaad u wadwadaysaa marka horeba shaygu gebigiisu waa drag and drop laakiin muxuu samaynayaa shay kasta waxbaad ka bedbedelaysaa marka xitaa wuxuu ku leeyahay take to inuu wax yar ku tusuu doonaya qaababka waxyaabahan yaryar loo isticmaalo shay kasta isaga ku macnaynaya kaasi waa sidaa kaasi waa sidaa wixii ba isaga ku macnaynaya daanu imika inuu macneeyo uma baahni waay de kan idin sharaxi maayo oo kan idinka ayaa ku shaqaysan doona oo kaliya ka bedbedelan doona laakiin kan doonaya inaan idin sharaxaa waa google formka kacayn kara marka ugu horeysa halka magaciisa gelinaysa tusaale kale waxa la leeyahay section 1 exam baan leeyahay amba imtixaankii hebel oo kale magacii aad u baahnayd baad halka gelinaysaa halkan kale ku xigta waxaad gelinaysaa description-ka shayga loo yaqaan maxay tahay description-ku tusaale kale description-ka waxaan anu inta badan ka dhigtaa saddex shay inaan ardayda ku idhaahdo soo qora kolba wixii aad u baahan tahay baad adigu ardayda u sheegaysaa waa imtixaan walba description buu leeyahay anu waxaan idhahdaa magacaagii soo qor emailkaagii soo qor numberkaagii soo qor saddexdaa shay marka uu ardaygii soo qoro wixii description ay kala siinayaan siinaya guud ahaan imtixaanka oo dhan ka shaqee 4 kamida ka shaqee 5 kamida ka shaqee imtixaamada saas oo kale ayaan u sheegaa marka taas ayaa muhiim ah in ardaygii siiso description kolba wixii aad doonaysay way dadyo 20 qof ka soo shaqeey 20kii qof waxaad ku kala garanaysaa qofku waa inuu magaciisa soo qoraa uu emailkiisa soo qoraa oo uu numberkiisa soo qoraa kadibna si fudud baad u kala saari karaysaa dadka way aynu halka ka bilowno marka ninka hadda halka ka sii bilaabayo waxaan saddexdii description-kii aan u baahnaa ayaan halkan ku qoran doonaa waayahay iminka sad halkan ku arkaysaan saddexdii shay ee detail-kooga ardayda aan uga baahnaa waan buuxiyey oo waan qoray description-kii maxay kala qoraa waxa kala qorayaa shayga inay halka waxaan oranayaa ogsoonow dhammaan su'aalaha waa inaad ka wada shaqaysaan dhammaan su'aalaha waa in aad ka wada shaqaysaan hadda intaasoo kale ayaan ku qorayaa dhammaan su'aalaha waa inaad ka wada shaqaysaan waa shay ardaydii dee adu description-kaaga baad halkaa ku siinaysaa halkanna wixii aad ka doonaysay ayaad ku qoraysaa waay intaa waan ka gudbay waxaa ii soo hadhay wixii loo yaqaanay title-ka horta intaanan title-ka ku qorin waxaan samayn doonaa inaan ardayga warbixintiisii title gaar ah u sameeyo saddexdan shayna ardaygu meel uu igu soo diro amba saddex meelood oo igu soo diro inaan u samaysto waay seen u samaynayaa title shaygaa la idhaa ii soo dooro tt shaygaa ay ku qoran tahay hareerta ka xiga ii soo dooro ay ku qoran tahay add title and description markaan doorto halkan baad ku qoraysaa title-ka magaciisa title-kan doonaya muxuu yahay warbixinta ardaygan leeyahay warbixinta ardayga waay warbixinta ardayga ayaan ku qoray warbixinta ardayga marka ku qoray haddaad description usii samaynayso oo usii samayn kartaa laakiin intaasoo keliya tan hadda ku daysanaya xaggan haddaba su-aashii koowaad baan ka bilaabanaya su-aasha see loo soo furtaa horta tan waa tii inoo taallay markii horeba ee meesha inoogu sii diyaarsanay laakiin haddii aan iyada laftigeeda dhiliid gareeyo
halkaas doonaysa ay ku qorantay add question ta ugu sareysa ee calaamadda balaaska ee goobada ku dhex jirta marka soo doorto su'aal cusub buu kugu soo daraya halkan waxaad ka dooranaysaa nooc may noqonaysaa su'aashaadan haddii imika soo furo waxaa ka dhex dooranaya tahay ku qorantay short answer su'aal kooban ardaygu ha iga jawaabo haye maxaan ku qorayaa emailkaaga qor emailkaaga oo kale aan leeyahay marka maxaan leeyahay email baan leeyahay email fadlan qor emailkaaga oo kale ayaan leeyahay fadlan halkan ku qor fadlan halkan ku qor emailkaaga way sidii aad doonto qof walba u dhigi karaa waxaan aynu ku qoraynaa waa Soomaali English baad ku qori kartaa haye haddaba halkaas aynu maraynaa oo fadlan ku qor emailkaagii ayaynu nidhi haddaba waxa weeyaan email nimaynu meeshii u gelinay Soomaha oo ardaygu waxaanu sheegnay inuu emailkiisa halkaa ku qoro halkan waxaynu leenahay waxaanu furaynaa halkan mad garanaysaa ii sheeg required baan ka dhigaynaa waa shay loo baahan yahay macna haddii aanu ardaygu emailka gelin formkan kama shaqayn karayo way tii labaad baan ku soo darsanaya su'aal labaad igu soo darbalay emailku waan dhameystiray maadaama aan halkaana magacii sidii aan u baahnaa aan ugu qoray fadlan ku qor space emailka yara waaweynee aan saayidi waa iska gudbaya waxaan numberkana iga remove karee halkan waxaan gelinayaa numberkaaga number oo kaliya talnay number mayri maadaama aan halka sare ugu soo sheegay ardayga waxaan u soo sheegay magacaaga numberkaaga wixii baan u soo sheegay Soomaa numberkiina halkaas oo kaliya tan gelinaya halkan hoosaadaba wuxuu kugu soo saaray number is sakad yar oo uu leeyahay sakadan yar macnaheedu waxa weeyaan dadku numberay soo dirayaan number caynkeeya ayaa doonaysaa in ardayda ka saxo macnaha qofkii wuxuu soo galiyay number khaldan buu soo galiyay amba xarfu ku dhex daray jawaabtii uu ka shaqeynay waa systemkii baa la doonaya inuu yiraahdo ka joog numberkaaga inuu khaldan yahay qaabkan oo kale u gali kadibna waxaan leeyahay +252 63 405 amba tusaale kale 405 anigoon odhan ayaan 4 markaan geliyo ayaan inta kale oo dhan ka dhigayaa egas oo kale number la iska garanayo iyo inta dambe oo egas waxaan leeyahay required waa shay looga baahan yahay ardaygu inuu numberkiisa geliyo hadduu ka tago formkan ma soo gelinayo maxaad ku garanaysaa haddaba su'aalaha requiredka su'aal kastoo required calaamadda yar ee cas ay dul dhigayaa ee xidigta ah way su'aal saddexaad ku soo darbe su'aasha saddexaad maxay odhanaysaa magaca ardayga waayahay su'aashii saddexaad waxa la dhexda u gali maadaama maxaan dhexda ugu gelinaya anu waa qaabkan u doonay idinku qaabkan u doonaysaan idin ma khasbayo magaca oo saddexan baa dhexda igu jirtay imikana halkan magaciyo saddexan baan dhexda gali way short answer ka dhig required na iga dhig waa shay loo baahan yahay iyaduna halka maxaan ku dhameeyay qaybtii ugu horeysay ku dhameeyay haddaba qaybtii ugu horeysay maadaama aan ku dhameeyay aan idhaahdo systemkaygan ilaa imika waxaan ka hagaajiyay baasha ayna waxaan dooranayaa ay ku qorantay preview markaan doorto qaybta caynkan ayuu keenayaa formkan design gareeyay ilaa hadda caynkan buu eegyahay warbixinta ardayga waayahay fadlan geli emailkaaga magacaaga ku qor numberkaaga ku qor saddexdaas ay required yihiin kadibna submit ilaa imika shay caynkaasaan design gareeyay way yar haddaba yarasu wax badan baan ka bedeli doonaa oo ay tahay inaan tan qurxiyo oo qaab wanaagsan u dhigo iyo wax kale oo fara badan haddaba intaa aanu halkaa ugu joogno maanta casharkeenu maanta halkaas ayuu inoogu joogi doonaa tan iyo intaynu isugu iman doonno casharkeenan qaybtiisa dambe maadaama laba qaybood casharkan loo kala jabiyey waa aniga oo idinkaga tegaya ismaqal aragti dambe oo xiiso badan